بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد sida aad wada ogsoon tihiin bishii January 26 axadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta halkaas oo ay ka heleen soo dhaweyn iyo ballanqaad rasmi ah kulankaasi intii aan joognay waxaan la kulannay madaxda ugu sareysa dalka oo ka mid yahay wasiir madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka His Highness Al-Mansour bin Zayed Al Nahyan iyo saddex wasiir oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda dhaqaalaha iyo madax kale oo ah iyo wasaaradda shaqada muddadii aan halkaa joognay waxaan kulano la qaadanay 6 hay-adood oo dawli ah oo ah kuwa ugu waaweyn dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxa kaloo aan la kulanay mas'uuliyiinta ugu sareysa amniga dalka Imaaraadka Carabta muddadii wada hadalku noo socday waxa wafdiga uu hogaaminayay